channelka Somali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soo dhawaada dhammaan akhyaarta ku xidhan channelkeena Somali Network Classroom. Inshallah dad koor ku xusubta YouTube channelka inshallah subscribe gare. Akhyaartada kalena la wadaag hadii aad arday jaamacadeed tahayna la wadaag ardayda kale jaamacada iyaguna say cilmigooga iyo warbixinaan inshallah iyaguna kula wadaagaan. Sidoo kale hadii aad arday kale oo isagoo cilmigan daneeya aad garanaysid ishagana inshallah la socodsi waxaa la yidhi faa'iidatul cilmi huwa intishaaru cilmiga faa'iidadiisa waxa weeyaan inaad sii faafisid taas waa taa hadduu alla idmo waxaanu ka soo warmaynaa hadduu alla idmo laba nooc oo waxaan sheegnay waxa la yidhaha afar data tape oo Python-ta ku dhisan baa jiraan dhahnay ayaa sheegaya si degdega kugu hore waxa weeyaan waa list oo aynu soo qaadanay sidoo kale waxaa jira mid loo yaqaan hadduu alla idmo table waxaa loo yaqaana table laba kale ay noo dhimo loo yaqaan set iyo dictionary oo gaari doona hadduu alla idmo laakiin kala waasan qaad labada farqood in la kala fahmayna waa aan rajeynaya taas waa taa maanta waxaan rabaa inaan aragno hadduu alla idmo functionska ugu caansan ee lala isticmaalo markaan table-ka joogno functions baa lala isticmaalay Soomaa waxaan maanta arki doonaa functionska ugu caansan ee table-ka lala isticmaalo oo ah hadduu alla idmo length county min maximum qaar kale badan la isticmaalo laakiin afarta insha Allah ku soo khulaasayna weyn ka gudbi doona table-ka oo waxba kaga duwana kii loo yaqaan liska liska soo faantay table-kan farqiga kaliya u dhaxeeya waa maxay hadduu alla idmo inaan ku sheegno hadduu unchangeable wixii la galiyay waxba lagama bedeli karayo unchange ayaan ku sheegnay okay balaano iman function kan muxuu taray length hadda hore soo sheegnay ya xasuusta waan soo sheegnay function ka la gashay length waxaan sheegnay inuu noo sheegayo value ku jira train teleg weeyaan tabal baan sameeyna 100 waxaan ku kushubnaa 100 number wuxuu noo sheegi doonaa inta magaciisa ku jira wuxuu doonaa 100 baa ku jira barma tijaabina tusaale oo kale leesan waxaan dhahnaa hadduu alla idmo lesson mar walba practicalka ayaan jeclaynaa wixii u bedelno lesson teedna haddaan imka dhaano saaxiibkay tabal baan sameeynaa tabalka waxa loo yaqaanaa magac inoogu bixiyo universities baa loo yaqaanaa marka ama hadda barnaamij dhisis mar walba waxaad ka fikiraysaa war waxaagan hadda istiraama tabal baan isticmaalo misalis iswidi qiimaha value-gaaga waxba la rabaa in laga bedelo mise sida loo deynay hadii aad saki kaga jirto leedahay meel waxba laga bedeli doonaa iska isticmaal liska hadda laakiin hubtina waxba laga bedelay markaasaan isticmaalna hadduu leeyahay maxay kii loo yaqaanay tabalka marka jaamacadan warno waxa kamid ah jaamacada loo yaqaan Beder University jaamacada labaadaan qaadayna hadduu leeyahay meesha ku warno waxa kamid ah jaamacada loo yaqaan Hargeysa University jaamacada saddexaad iyadana aan rabnay inaan ugu leeyahay jaamacada loo yaqaan Golis University inta jaamacad bay noogu jira saddex jaamacad bay noogu jira haddaan leenahay la soo daawactaa waan isla garanaa table-keeno magacin baa loo yeeri doonaa dhag deetana waxa la oran doonaa hadduu leeyahay noo soo saar sheekadu oo dhantay isla markii waa inuu arki doonaa Beder University Hargeysa Soomaa laakiin waxay rabnaa inaanu lengthkeeda ogaan imika uu yari jaamacadaha inoo kaydsan laakiin kordhay jaamacadaha 100 dhaafsayna inoo intii inoo kaydsanay waxaan qoraynaa function loo yaqaan length oo li ah deedna function-kiina waan soo xidhi rabnaa adii arka function kale kaydmanaysa wuxuu noqon doonaa saddex jaamacadood baa ku jira 3 marka aynu adeegsanaa run code saddex halkaa ka eg waynu saddex inoo soo saaraa saddex jaamacadood haddaynu ku kordhino jaamacadana jaamacad kale aan ku darno jaamacada aan ku darayno waxa jaamacada loo yaqaan Amuud hakada kana ka dhigno hakad jaamacada loo yaqaan Amuud waxaan qoray waa maxay waa University planeegno waxa loo oran doonaa afar jaamacadood weeyaan 4 baa loo oran doonaa amsa waa afar taas waa ka function-kaas wuxuu noo sheegayaa wixii value ah number of ama wuxuu noo sheegi doonaa hadduu alla idmo number of values inta shay ay ku kaydsan in our table dheh ayuu noo sheegi doonaa kaas waa kaa waxaan imanaa function-ka labaad loo yaqaana code function-ka labaad code wuxuu noo sheegayaa shay soo noqnoqday inta jeer uu soo noqnoqday oo kale ma hal mar ba ama laba jeer ba ama saddex ba ama afar tusaale imka jaamacada halkan inoo yaala tusaale ayaa waxaan rabnaa Beder oo kale aan laba jeer soo celin oo kale halka Amuud baan ka bedelaynaa Beder isku siina way u qormaan filimka Beder bida hore weyn tani weyn bida hore weynina okay Beder University imaka waxaan rabnaa inaan ogaano saaxiibkayo jaamacada Beder leeyahay imsay liskeena ku soo noqotay imka waan arkayna waa laba jeer laakiin haddii qoraalku badan yahay seen ogaana adag sidaa darteed waxaan adeegsanaa function-ka loo yaqaano
loo yaqaano maxay county. saa darteed waxaan leenahay marka la joogo functionkeena loo yaqaano university, marka la joogaan leenahay tabelkeena loo yaqaano university dot county waxaad ka eegtaa inta jeer uu soo noqnoqday jaamacadda loo yaqaano Beder, inta jeer ay soo noqnoqoto. marka u fiirsi saad u qoraysid Beder waan isku sii u qornaa university. inaga markaa waxaan ka arkaynaa laba jeer inoo soo noqotay, waa 2 times markaa inoo idhaahdo ranka hore aan dhahno waa 2 times in idhaahdo. waxay imsa jeer soo noqotay 2 laba jeer aan ku soo dhaweeyay. imsa jeer bay jaamacadda Beder soo noqnoqotay liiskana gudihiisa laba. haddaan dhahno in jaamacadda aan bedelno jaamacadda Hargeysa oo kale ay hal mar weeyaan Hargeysa. laakiin waxaan imika ardayda qaar bay wala muuqatay inay naafici, laakiin mar bay naafici doonaan marka barnaamij weyn aan dhisayno. tusaale kale barnaamij aan jaamacado kale u dhisayno kale ayaynu baahnaan ama arday aan diiwaan gelino. tusaale arday badan baan diiwaan gelinay, waxaan isweydiinay horta ninkii loo jeeday xamse imsa jeer baan soo celcelin. marka waxaan ogaan doonaa functionka loo yaqaano county ku ogaan doonaa. functionka saddexaad waxa loo yaqaanaa min, oo aan ku ogaano haddii meeshii tabelkeeni haddii uu ku guda jiray saaxiibka, hadduu tabelkeenu uu ahaa values of numbers haddii ku jiraan numberaan, waxaan ku ogaanaynaa kooda ugu yaraa smallest baan ku ogaanaa, smallest number ayaan ku ogaanaa. haddii maximum kuna waa cagsigiyo haddaynu tabel sameynay tabelkaana ay ku jireen values of numbers ay ku jireen, waxaan ku ogaanaynaa largest numberkii ugu weyna meesha markaa ku jira. balaan tijaabino waxay naga baabi. waxaad inoo samaysaa hadduu alla idmo okay ma dib u celi. waxaad inoo samaysaa function waxaan jeedaa list tabel magaciisa loo yaqaano numbers loo yaqaano. waxaad inoogu ridaa hadduu alla idmo number ay noogu numberka loo yaqaano 100, numberka loo yaqaano 8, numberka loo yaqaano 9, numberka loo yaqaano 102, numberka loo yaqaano 15. tabelkeena intaas ayay noogu guda jira. waxaan rabnaa hadduu alla idmo inaan ogaano maxay okay tabelkeena 4 number 5 number bay noogu jira. waxaan rabnaa inaan ogaano tirada ugu yar ee meesha taala. marka waxaan leenahay print waxaad noo soo daabacdaa min oo ah minimum ka ugu yar marka la joogo halkee tabelkeena loo yaqaano numbers. ayna eegna marka ranka hor aan dhahno okay yay sheegay cilada halka ka tahay. halka u fiirso 9,102 space baa u dhaxay. marka halka wayna dhignaa u fiirso waa 5 value bay nagu jira. 5 value kayba ugu yar state baa ugu yar imka meesha waxa jooga taasay state bay noo soo saari doonaa. kayba ugu yar 8 kaas waa minimum. maximum kuna waa la mid halkaas ma dhigi doona maxay max oo maximum numberka ugu weyn. ranka hor haddaan dhahno waa numberka ugu weyn oo 102 malaynaya 102 ayagu weyn wax meesha ku jira dee. marka afarta function waa 4 function oo tabel liskana lagu dhex isticmaalo, sidoo kale liskana lagu dhex isticmaalo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi